السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa in wada qodobo aad u muhiim ah oo ku saabsan shirka ay gudoonka u tahay gudoomiyaha u tahay Pakistan uuna ka dhacaya caasimadda Islamabad. Qodobadaas oo aad maqli doonteen waxaana ka mid ah wada hadallada Washington iyo Tehran waxay masiiriga ah waxay noqon doonaan guul ama fashil, waxaa yiri ra'iisul wasaaraha Shariif. indhaha caalamkana waxay u sii jeedaan u jeesteen caasimadda Pakistan Islamabad, halkaasi oo la filaya inay ka bilaaban doonto wada hadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran si loo gaaro heshiis joogto ah oo u soo afjaro dagaalka bariga dhexe. Shariif oo hadalkiisa sii wata wuxuu sidoo kale caddeeyay in hogaamiyaasha Washington iyo Tehran ay wada hadalladooda u bilaaban doonaan caasimadda dalka Pakistan. wada hadalladan lagu bedeli doono xabadan lagu bedeli doono wada hadal. Dhanka kale, dowladda Britain ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraheeda oo la hadlay dhigiisii Pakistan ee Shariif isla markaana ay isku raaceen wada hadallada soo socda ay muhiim yeeshaan in loo sameeyo xabad joojin iyo nabad waarto dalka bariga dhexe lagu soo rogo. Pakistan oo martigelinaysa wada hadallada Mareykanka iyo Iran, Washington iyo Tehran u dhexeeya waxay ku adkeysanaysaa shuruudeeda. Tehran waxay ku adkeysanaysaa shuruudeeda 10 qodob ahaa, waxaana maanta Sabtida ka bilaabanaya dalka Pakistan wada hadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran, iyadoo Tehran ay ku adkeysanaysaa shuruudda la xiriirta xabad joojinta ka dhacaysa xabad joojin ka dhacdo Lebanon iyo in la sii daayo hantideedii. Waxay dhahdeen shuruudeeda waxaa ka mid ah oo 10 ku jiray in xabad joojin laga bilaabo Lebanon iyo hantideedii hore ka maqneyd in ay loo soo fasaxo. iyo wada hadallada arrintaasi waxay dhahdeen arrintaas waxaa ka dhalan doono imtixaan wada hadallada gelinayo waqti mid kale. Macnaheedu waxaa weeye markii arrintan hantida may ku jirin laakiin way kusoo darsatay, markaas carqaladay ku noqonaysaa macnaha laga wadaa. Tan kale ra'iisul Mohammed Baqir Qalibaf Ciraaqji waa ra'iisul baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi heer sare ah oo ka socda Iran ayaa gaaray caasimadda Pakistan Islamabad ka hor wada hadalladoodii. Telefishinka rasmiga ee Iran ayaa sheegaya wafdigaasi ay ka wada ku jiraan ra'iisul baarlamaanka, wasiirka arrimaha dibadda, mas'uuliyiin iyo amni iyo kuwa dhaqaale la socdo. Tehran waxay caddeysay in aysan bilaabi doonin wax wada hadal la yeelanayso Washington ilaa laga fuliyo shuruudaheedii 10 ahaa.
xabad joojinta Lebanon Maxamed Bakhaar waa ra'iisul baarlamaanka ayaa ku adkaystay in markii hore la gaarsiiyo xabad joojin ka dhacdo Lebanon isla markaana hantidoodii la xayiray la sii daayo intaas aan la bilaabi wax wada hadal xabad joojin ah lala yeesho Mareykanka. Wafdiga Mareykankana waxaa la filayaa inuu hogaamin doono JD Vance waa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka markii uu gaaray Islamabad. Ra'iisul baarlamaanka Iran wuxuu sheegay in Iran ay diyaar u tahay heshiis balse ay shuruud ka dhigatay in Mareykanka keeno dalab dhab ah. Wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay in dalkiisu leeyahay niyad wanaagsan balse uusan kalsooni ku qabin Mareykanka. Dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa mar kale xaqiijiyay in heshiis kasta oo xabad joojin ah qasab ku yahay inuu ku jiro Lebanon, isagoo taasi ku tilmaamay qayb muhiim ah oo ka mid yahay xasiloonida guud ee gobolka. walaalayaal waa in salaamaya intaana kusoo joojinaya warkan ii akhrinayay wixii kusoo kordho waan inoo soo socodsiin doonaa. waa in salaamaya nabadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.